وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحب البلاد إلى الله المساجد وأبغض البلاد إلى الله الأسواق أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله إلهي بانكم مهدنينا inaga soo qayb galiyay salaada maghrib inaan jamaca maaragtaan aan la tukano kadib ilaahay wuxuu noo idmay inaan masaajidka ku nagaano oo ku i'tikaafno inagoo ilaahay tabaaraka wa tacaala kaliya doonaya maaragtaan ridihiisa. meel lagu nagaado waxa ugu khayr badan waa masaajida, meel la fadhiisto lagu i'tikaafo oo fadhigoo kaliya ajar laga helo waa masaajida weeyaan. dad iska fadhiisatay masaajidkaas ood xataa xadiis aanad dhegaysan ood quraan aanad akhrisan oo dikri aanad samaynin kaliya haddaad maskiidka waysaqab aad ku dhex fadhiisato ayaa ilaahay kugu naxariisanaya oo ilaahay kugu dambi dhaaf. laana masaajida ilaahay baa iskale, cid kale ma leh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. مساجد وحى الله دس إلهي جل وعلا إن لقوا وينيو وإلهي تبارك وتعالى لقوا عبدوا إلهي لقوا بريو مالين مالمها كمدا أيا نبينا عليه الصلاة والسلام وحو أركي لن مساجد دحديث بايله كلهم تكرر هذين أيا مركب النبي يقول إلهي كوم سوء عليه بكوري هذا أركتان ood aragtaan in masaajidka dhexdiisa wax ku iibsanaya ama wax ku iibinaya waxaad ku tiraadaan ilaahay kuma barakeeyo dhahada. haddaad aragtaan masjidka dhexdeeda qof baylaha duuya ka yoohinayana isagana waxaad ku tiraadaan buu nabigu ilaahay kuma soo celiyo dhahada. inama buniyat almasajidu lima buniyat laha. masaajida waxaa loo dhisay cibaadada Allah unbaa loo dhisay masaajida in ilaahay lagu weyneeyo oo ilaahay lagu baryo oo ilaahay lagu caabudo oo ilaahay loogu dhawaado masaajidka loo dhisay. meesha dadka muslimiintu rabbigooga ay kaga xidhmaan waa masaajidka. qofka masjidka cilaaqa aan la lahayn waa daliil, waxay daliil u tahay qofkaas ilaahay cilaaqa lama leh. muslimku halkuu ilaahaysa kaga xidhmo waa masaajidka. toddobada ilaahay jalla wacala maalinka qiyaamaha uu hadhayn doono maalinta harka alla mooyaane har kale uusan jirinna waxaa ka mid a buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam warajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajidi. nin qalbigiisu mar walba masaajidka ku xidhan yaho maskiidka cilaaqa la leh ayaa ka mid a buu nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam. masaajidkuna waa meesha nebigeenu calayhi salaatu wasalaam waa halka ummadda uu ku tarbiyadeeyey weeyaan, waa halka saxaabadiisa cilmiga uu ku baray weeyaan. wufuudda magaalada madiina imanaysa nebiga la kulankiisa u imanaysa waa meesha nebigeenu ku soo dhaweynaya oo ku istiqbaalaya weeyaan. cahdigii nebigeena calayhi salaatu wasalaam markuu nebigu madiinata almunawara uu yimiday laba camal buu nebigu markiiba madiine ka dhaqaajiyey. bana almasjid, masaajid buu nebigu markiiba uu dhiso ummadda u calaamadeeyey. camalka labaaduu nebigu madiine markuu yimid uu qabtayna waxaa ka mid ahayd aakhaa bayna almuhaajiriina waalansaar. ansaar iyo muhaajiriin buu nebigu walaala uu ka dhigay. muxuuna ku walaaleeyey calaa asaasi aliimaan, iimaan buu ku walaaleeyey. ukhuwada wuxuu nebigu asaas uga dhigay islaamnimada, ayuu nebigu ukhuwada asaas uga dhigay. iimaanka ayuu nebigu maaragtaan asaas uga dhigay ukhuwada islaamka. masaajidka markaas wuxuu noqday meesha ummadda nebigu ku tarbiyadeeyo. haddii diin la baraayana qofka maskiidka lagu barayay, haddii wufuud nebigu uu qaabilayana maskiidku ku qaabilaayey, hadduu nebigu ciidamo uu dirayana maskiidku ka diraayey, hadduu maaragtaan jamaacadda diinta ilaahay fidinaya uu dirayana maskiid buu ka diraayey. haddii nebigu calayhi salaatu wasalaam haddii ummadda uu la tashanayana maskiidka dhexdeedu nebigu kula tashanayay. salaadii cishaa'i buu nebigu ka baxay uu istaagay wuxuu yidhi salaadii ilaahay baa na siiyo nagu farad yeelay, laakiin sidaan ummadda salaada aan ugu yeedhi lahayn baa laynaga rabaayo ka tala bixiya buu rasuulku yidhi. danta ummadoo dhan nebigu maskiid buu ka bilaabay.
sideen ummadda salaada xaggeega aan ugu yeedhnaa waa talo waa tashi waa ta ilaa imika ummaddu ay fahmi leedahay war diintan tashi bay u baahan tahay diintan dhegaysi keliya uma baahno diintan waxay u baahan tahay caaqilka iyo caalimka ka yar iyo ka weyn faqiir iyo qani madaxdeenni mijaheennu intoon masaajida ku kulanno salaad waan ku kulannaa alxamdu lilah laakiin waxaa la rabaa inaan ku kulanno diinta tashigeega inaan ku kulanno sidaan ummadda salaada xaggeega ugu yeedhnaa salaada nebiga isagaa loo soo dhiibay halka axkaamta kale oo dhanna nebiga arlada isagoo jooga loogu soo dhiibay jibriil calayhi salaam soonka markii ummadda lagu farad yeelo jibriil baa loo soo dhiibay zakada markii ummadda lagu farad yeelo jibriil baa loogu soo dhiibay xajka markii ummadda lagu farad yeelo jibriil baa loogu soo dhiibay alcibaadaat anwaac alcibaadaat oo dhan markii nebiga iyo ummaddiisa lagu farad yeelayey jibriil baa nebiga loogu soo dhiibo arlada ugu keenayey laakiin salaada markay noqotay salaada nebi maxamed baa intuu arlada laga qaaday oo la dheelmiyey oo haddana micraaj loo bilaabay leylat alisra walmicraaj ayuu nebigu ilaahay la soo munaajooday dadna shantaas salaadood baa nebiga loo soo dhiibay shantaas salaadood laakiin habkii ummadda salaada loogu yeedhaayey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ummaddiisaa loo dhaafay inay ka fikirtay ka tashato markaa nin saxaabiya ayaa yidhi markaas ani waxaa ila quman buhi nebi allow inaan bir xadiida aan ku dhifano markaas qawda markii la maqlo dadku way maqlayaan dhawaaqa markaa birta lala dhacayo deedna masjidkay imanayaan markaabuu nebigu yihi taa nasaarada ayaa isticmaasho waa jarsi weeyaan ee tala kala keena buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam nin kalea yidhi anigana waxaa ila quman inaan dab shidno oo dabkaa marka la arkay qiiqiisii holociisa ayay muslimiintu garanayaan salaadii wakhtigeegi inuu gaadhay deedna salaaday imanayaan taana qolada cadcaadiya dabka caabudda isticmaashay tala keena buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam deedna markaa haddana nin kalea yidhi anigana waxay ila tahay booq in la afuufa fuudhin taana yahuudda isticmaasho waa caadada yahuude tu kala keena buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam suuradii habeenkii markay muddo dheer ay socotay buu nebigu yidhi arrinkaasi caawa haynagu barye subaxda haynoo haata buu rasuulku yidhi sidaan ummadda masaajidka ugu soo xidhnaa sidaan ummadda aan salaada ugu soo xidhnaa siday ummaddan ilaahay ugu xidhantaa ayuu nabigeennu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa kala tashanaya salaada waa salaada awqaadeeda iyo kayfiyadeeda iyo inta rakacadood ay tahay iyo hay-adda salaada iyo awqaadda la tukan kullahaa waa waxyi weeyaan waa waxyi waa cibaado weeyaan nebiga waa loo waxyooday laakiin kayfiyaddii ummaddu salaada loogu yeedhi lahaa waxaa loo dhaafay nebiga iyo ummaddiisu inay ka tashato halkaa maxaad ka fahmaysaa sidii masaajidda shaqada loo dhisay bay kamid tahay shuuradu in dadka muslimiintu danta ummadda talada ummadda maxaa ummadda u dana diintooda maxaa u dana adduunyadooda maxaa u dana noloshooda khaaska maxaa u dana noloshooda caamka maxaa u dana inay ummaddu arrinkaa masaajidda dhexdeeda ay kaga tashato waa sharci ilaahay noo soo dejiye weeyaan waa sunna nabawiya laakiin mahjuuro maanta laga hijroodo ummaddu ka indiraastay weeyaan salaadii subax markii laga baxay buu nebigu yihi ayaa xalay toola arkay buu yihi riyo shuuradii baa socota taladii baa socota tashigii diintaa socda nin saxaabada ka mid ahaayo weliba ragga busodada ka mid ahaa ayaa yidhi xalay toola anoo dhinacna kasii lulanaya dhinacna ka soo jeeda ayaan maqlay buu yihi dhawaaq dhegtayda lagu dhawaaqaayo erayadiina waan xasuusanahay nebi allow markaabuu nebigu yihi erayadii ma xasuusan tahay haa bal erayadii xalay dhegtaada lagugu dhawaaqeed maqlaysid noo sheeg markaasuu sii daayey ninkii aadaankii buu sii daayey allahu akbar allahu akbar markaasuu yidhi cumar bnu khadaab aniguna manaamka xalay waan arkay 6 nin oo saxaabadii ka mid a ay isku mid bay yidhahdeen annaguna xalay riyadaa waan ku riyoonnay markaabuu nebigu yidhi adinkeennii waa kaase laakiin aadaankaa bilaal bara buu rasuulku ka yidhi shuura ka soconaysay masjidka nabigeenna tashi xataa siirada waxaa ku taalla fi sunan gaalada markii lasoo qabta qaarkood nebigu wuxuu odhan jiray masjidka ku dhex xidha hamaamata bnu athal baa ka mid ah fii saxiix albukhaari raximah llah sariyuu nebigu diray markaasay ninkaas soo qabteen markaasaa ninkii nebiga loo keenay maad garanaysaa ninkan maya ma garanayno waa hamaamata bnu athal waa malika alyamaama halkaa iigu xidha buri masjidka dhexdeeda igu dhex xidha masaajidkii waa jeel markaasaa halkiiba lagu dhex xidhay markaabuu nebigu reerihiisii buu tegey cuntuu uga soo qaaday
hashii irmaanida nabiga noo maalaya caanaheegiina uga soo qaaday markaasuu nabigu halkii ugu keenay uu hawaa oo nin xidhxidhan markuu cuntadii siiyey oo caanihiina kabisiiyey buu ku yidhi yaa Thamaama iska soo islaam markaasuu yidhi ma islaamayo buu yidhi in taqtul daa damin wa in tuncim calaa shaakirin wa in turiidu almaala fasal maa shi'ta buu ka yidhi yaa Muxamed haddaad aniga idishid buu ka yidhi nin dhiiggiisa dhulka u dhacaya ma yihi buu yidhi tol baa iga dambeeya buu yidhi haddaad igalladaysatidna maantood xariga iga sii daysidna nin abaal celiyaan ahay buu yidhi anugu waan abaal gudi haddaad maal iyo adduunyo doonaysana sheega waxaad doonta waan ku siinaya laakiin xariga iga sii daa markaabuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi may kuma sii daynayna buu ka yidhi habeenkiibuu halkii ku baryey cashadiibuu nebigu haddana u keenay hashii nebigu caanaha uu ka maalayey isaga looga maalayey ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga ayuu u keenay caanihiisi markaasuu ku celiyey haddana uu iska islaam nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa nin gaala oo mushrika caanihiisii intuu keenay siinaya xeraadku ku casheynayana intuu soo qaalibuu hordhigayaa markaasuu weliba u khidmaynaya u adeegayaa uu leeyahay soo islaam muxuu nebigu ninkaa la maagan yahay inuu naar ka badbaado masab ka dooni maayo lacag ka dooni maayo shuhrad ka dooni maayo waxa keliya ninka nebigu uu ka doonaya waxa weeyaan inuu soo islaamo markaasuu ku celiyay haddana yaa Muxamed haddaad idishid dhiiggaygu dhulka u dhici maayo waa layga dambeeyaa buu yidhi haddaad igalladaysatidna maanta ood isii daysid ood xarigga iga sii daysidna nin abaal celiyaan ahay buuhi anigu ma ciyaar nin kaftamaya ma ihi buu yidhi abaalkaaga waan gudi haddaad adduunyo doonaysana xoola waxaad doonaysa i weydiiso madax furasho oo waan ku siinaya xarigga iga sii daa markaabuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi may markaasuu dee waa hagaag aniguna ma islaamaya buu yidhi haddana maalintii saddexaad sidii si leeg buu nabigu ninkii ugu khidmeeyey xeraadkiibuu u keenay caanihiibuu u keenay markaasuu yidhi yaa Thamaama iska soo islaam sidii unbuu isaguna ku jawaabay markaabuu nabigu saxaabadiisii ku yidhi dilkiisu waxba inoo tari maayo xadhigga ka sii daaya haska socday buu yidhi sii daaya markii la sii daayey magaaladii madiinuu ka baxay beerihii beer ka mida buu galay ceel ay lahayd buu biyo ka soo dhaansaday uu ku soo qubaystay oo uu soo maydhay masaajidkii nabigeenna uu ku soo noqday isaga oo leh ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu wa rasuuluhu usalli rasuulkeenna sala allahu alayh wasalam markaa buuri yaa rasuul allah diintaadan diimaha ugu necbaa laakiin maanta laga bilaabaa diintaadan diimaha ugu jecelahay dalkaagaan adduunyada ugu necbaa magaaladaa madiine ayaan magaalooyinka ugu jecelahay wejigaagaan wejiyada ugu necbaa maanta laga bilaabaana dadka ilaahay abuuray adaan kugu jecelahay buu ka yidhi maxaa bedelay ninkaas saddexdii maalmood ee masaajidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ku dhex xidhnaa masaajidku waa meesha raxmadda ilaahay ku soo degayso waa meesha malaa'igtu ay imanayso waa meesha muslimiintu ilaahay ku xasuustaan waa meesha qofkii soo galaba loo dambi dhaafo weeyaan waa meesha nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu u doortay inuu ummaddiisa uu ku tarbiyadeeyo haddii dad diin la barayana cahdigii nabigeenna masaajidka nabigeenu ku bari jiray haddii dad la islaaminayana masjidkaa lagu islaaminayey haddii jamaaco la dirayay masjid buu nabigu ka diraayey haddii wafuud nabigu qaabilayay masjid buu ku qaabilayey laana masaajidku waa aqalka ilaahay meel cid kale loo nisbaynayo ma aha fadhiga aad fadhiisatay baad ka faa'iidaysan iska daa wacdiganba wacdiga wadaadadu ay sheegayaan xataa haddaad waxba ka fahmi weydo fadhiga masjidka aad fadhidaa ilaahay kugu naxariisan laakiin dadkeena maxaa fadhigii masjidka ku adkeeyay maanta masaajidii waa mahjuura waa laga hijrooday halkee camiran maqaaxyaha camiran maanta majaalistii qaadkaa camiran meheradihii adduunyada ayaa camiran 24 saaca adduunyada meelaheegu waa macmuur laakiin masaajidii raxmaddu ku soo degaysana waa mahjuur maanta axabu lbilaadi ila allahi almasaajid dhulka ilaahay meeluu ugu jeclaa waa masaajida meelihii ilaahay ugu jeclaaba naftu ka ordaysaa maanta oo nafteennu ay ka didaysaa meelihii ilaahay arlada ugu necbaana
nafteenni maanta way ku xasilaysaa. maxaa bedelay ninkaas? saddexdaa maalmood masaajidka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam khayrkii uu ka maqlaayey, khayrkii uu ka arkaayey, acmaashii masjidka nabigeenna saxaabadu ay ka qabanayeen ayaa noloshiisa ilahay ninkaa ku bedelay. markaa buuri yaa rasuul allah, cimraan u socdee maan u sii socdaa mise waan iska noqdaa? markaa buu nebigu maya orodoo cimrayso. laakiin wuxuu nebigu markaa uu sheegay arkaantii cumradu uu sheegay. ilaa cimrada iyo xajku waa soo jireen zaman jaahiligii, carabtu xataa way xajin jireen, wayna cimraysan jireen. markaa buu nebigu u sheegay arkaantii cumrada, sidaa iyo sidaa iyo sidaa. markaasuu maka soo galay. waxaa la yidhi waa saxaabiga ugu horreysay magaalada maka soo gala isagoo mulabiya, isagoo le labayk allahuma labayk, labayka laa shariika laka labayk, ina alxamda walnicmata laka walmulku laa shariika laka. waa saxaabigii ugu horreysay ee talbiyadda islaamka la yimiday, tawxiidka la yimiday ee magaalada maka soo galay buu ahaa Thamaama radia allahu canhu. quraysh ayaa markiiba ku soo ururtay. waxay ku yidhaahdeen waxaana soo gaadhay Thamaamaw inaad diinteennii aad ka baxdeen, maxaa ka jira? markaasuu yidhi marka horeba diin maan haysane, diintii nebi maxamed uu la yimiday baan raacay buu anugu salaamada. dakhaltu diina muxamed buu ka yidhi, diintii nebi maxamed uu la yimiday ee islaamka ilaahay noogu soo dhiibay ayaan anigu maanta laga bilaaba aan ka mid ahay ehelkayga buu yidhi. taad sheeganaysaana horaan uga baxayba. markuu cimraystay oo lagu dhici waayey, limaada laana ninkani waa boqor. xintada laga cuno, xinta shaciirka laga cuno dalkiisu ka baxa. quraysh way taqaanaa markaas, waxay is idhahdeen ninkaa haynagu taabanina, haddaad nagu taabataan dhaqaaluhu naga jari. mar alle markuu cimradii dhammaystay isaga u yimid oo ku yidhi qurayshay dhegaysta, maanta laga bilaabaa xinta xabban xinto shaciira dalkayga iniga imani mayso ilaa nebi maxamed oo amar isiiyo u sii daa igu yidhahda mooyaane, imaa ininkuu diinta islaamka soo gala mooyaane, labadaa waxba kama dhexeeyaan buu yidhi. waa ninkii ugu horreeyey baa la yidhi islaamnimada daraaddeed quraysh u saaray xisaar cunaqabatayn. iminka cunaqabataynta ayaa la saara, yaa saartaa islaamkaa la saara. maxaa laguu saarayaa? laana adduunyadii baad jeclaatay, adduunyadii baad weynaysay, waxay gaaladu caabudayeen baad adiguna la caabuday, markaa way kaa adag yihiin ogow, khadkoogii baad gashay. markaasaa markii uu dalkiisii ku noqdayba qoomkiisi way wada islaameen. markaasuu yidhi magaaladii maka shaciir ha u dirina buu yidhi, xinto ha u dirina buu ka yidhi, ka joojiya. mar allihii markii ay maqleen reer maka ninkii uu ka joojiyey raashinkii, badeecadii baad ascaarteedii baa kacday. markaasay qurayshi nebiga warqad u soo qortay ku dhawarayaan ay leeyihiin yaa muxamed, yaa muxamed, diintaadii ma waxay ku faraysaa inaad riximkaaga aada goysid ood gaajo ku dishid? markaa buu nebigu maqlay calayhi salaatu wasalaam. markaasuu yidhi Thamaama binu Afaal buu nebigu warqaddu qoro, wuxuu ku yidhi tolka ilaahay baa soo hadayn doonee inooga sii daa buu ka yidhi, raashinka u sii daa. masaajidku saasuu wax u bedelaa. uma tarabad fi lmasjid, nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa ragga taariikhdooda maanta caalamkao dhan laga wareeray ee la leeyahay hadday raggaasi adduunyada mar labaad iman lahaayeen mashkiladda caalamka taallaya kaa xalin lahaa bay yidhahdeen gaaladii lalahaa waa indheer garato, waa khubara lagu sheegayey. warkoodu wuxuu ku soo ururay inay yidhaahdaan cumar binu khadaab ninka la yidhaha hadduu caalamka maanta iman lahaa mashkiladda caalamka taalla isaga unba xallin kari lahaa. markay akhristeen siiradii cumar, xaggay ka soo baxeen raggaasi? ayna takharajuu? wallahi cahdigii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam magaalada madiina madaaris qur-aanka laga bartana may lahayn, macaahidna may lahayn, jaamacadana may lahayn. meesha ay ummadda wax ka baratay masaajid buu ahaa. masaajid meesha nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ummadda uu ku tarbiyadeeyna masjidun ahayd, masjid.
إمامكي مسلمين أميركي مسلمين في علم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن الصخر أي أنتم مسجدك نبينا وكبحوا أي سوق أنتم تقول رنجري ورواد خسارتين والخير باين دافع محانا دافع وحاو رنجري ورد حالك النبي الله قيبين أن أرضو قيبتنا كسوقات ميراث محمد يا بحالك النبي مسجدك الله قيب سنة يا مركز سيداتك قار لين إلا عقل قيب سنة يوم لأنه هو السوية عين مساجد كيما يمادين واحد يقول الله قيبين يمركي أركي وايين أي أبا هريرة ولي هالكي تاغن والجولات كي الزيارات كي السمين أي كوير هذا يا أبا هريرة مساجد كي وانتقني واحد حلو الله قيبين يمنو أركي مركز سوري مساجد كي ما تكتينها وانتقني وأحد من مسجدك كما تركين ما مسجدك الددوي جوغين بدك مسجدك جوغين محي سميني ينبلي شيء قبولي والله قرآن بآخر سنة قار صلاة دي تكنيين قار إلهي دي بريين قار علمي دي برنيين مركب رواد خسارة بولي ذاك ميراث محمد عليه الصلاة والسلام نبي محمد عليه الصلاة والسلام دحالك أمدي سوغة تغي وشغلها مسكيتة كسوارة تنبولي إن معشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما أنك وعدان أركي أنبياء نحب رسولك يري دينار يا درهم لأنك ما دحلب رسولك يري أنك وحال أنك دحلب النبي علمك لك دحلب النبي علمك حريرك إلهي بني آدم كدح يا النبي لك دحلب نبي العقل لك دحلب قرآنكم مشيقين نبي وحال لك دحلب إلهي معرفة سال لك دحلب دين تايا لك دحلب دريك آخر يا لك دحلب الدنيا آخر وحي قفك كوحد هاي أي النبي لك دحلب أي النبي لك دحلب مرقاب النبي يقول لي أنك وهدان أنبيادي أنا هاي دينار درهم لما دحلو وحالا نقد دحلا برسولك ما ركتاني علم نقا علمك قاتنا نصيب وين بوقاته برسولك فمن أخذه بحظ وافر بالنبي يقول لي أنبياد علمك لقد دحلوا معي علاقة مع الله بلقد دحلا معلم بالنبي عليه الصلاة والسلام مسكيتكو سوق علي وحوارك نرر بادية وصلاة كناية وصلاة دي نحن كدو عيسناية واشتاق النبي مركز دعاء دي بولا قيستي ودعاء عجيبة دعاء بقول قسقاشن وإلهي أمانتيس يا من لا تراه العيون ولا تخالده الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يا من يعلم مثاقيل الجبال إلى آخر كيغا مركب النبي يقول أبو موسى الأشعري بو يري وحو كيري نكا دعاء مركو دما ييكن بو كيدي مركب الله يري نكي نبي كو دونايا نمرك مرحبا مركب النبي صلى الله عليه وسلم غنيمه مركا الله سو قاده وخوله مركا uu qaybinayay ayuu kiish lacag intuu ka soo dhex qaaday buu nabigu ninkii gacanta kaga riday nin baahan oo faqiir oo reer baadiya oo kuus lacag loo dhibay ka warama saas uu qalbay uu farxay markaa buu nabigu ku yiri lacagta sababta aan ku siiyay maad garan buu ka yiri markaas uu ha maxaad u malaynaa ku siiyay da tolnimadii siisay buu yiri markaa buu nabigu ku yiri waa runta رحمكم حق وإليه وحلسكو سيئ لكن لعقتن وجددا كو سيئ وحويان بحسن ثنائك على الله سيدا هدرتو الإله يعدو أماني سي أي كفر حيب رسولك تادرت بنكو سيئ بولي سيدا الله أبريس سيدا الله أماني سي وايو مقصود كالنبي يدى الدوية الله كينبا أها إني بني آذن كإلهي كحران markuu arkay nabigu shaqadiisii oo socota oo ku farxay nabigu kaleey salaatu wasalaam dana uu siiyay taalluq ilaahay dadku ay leeyihiin baa nabiga agtiisa ku weyne lacagtu agtiisa kuma weyno hatta si siirata umar waxa ku taala ghanimadii ayuu maalmaha kamida umar dul fadhiistay markaasuu u qaybinayay saxaabada markaasuu arkay inay yaro gacan go'an markaasuu yiri gacantan maxaa ka gooyay buulo wuxuu qaswadii halkaas ahay
ayaa dhaawacan la ii geystay buu ku dhaawacmay markaasuu lacagtiibuu cumar soo qaaday kun buu siiyey kun kale ugu daray haddana markaasuu cumar u qaybiyaa isagana weli meeshuu taagay oo lacagtii buu tirsanayaa markaasuu cumar ninkii isha ku dhiftay haddana mar labaad mar alle markuu dhaawacii arko ayuu soo qaadaa kun kaluu haddana siiyaa markaasuu cumar haddana u qaybiyaa markaabuu haddana isha ku dhifta halka yarka gacanta dhaawacu kaga dhacay markaabuu kun kale qaado uu tiriyaa uu siiyaa mar dambe cumar markaa uu waaya ki yaraa markaasaa lagu yihi cumar baa war ninkii meesha joogay meye waxaa la yidhi xoolaha aad siisay badnideeda ayuu la dawakhayo uu ka socday meeshii wallaahi baan ku dhaartay buri cumar binu khadaab hadduu ninkaa halkaas sii joogi lahaa oo ishaydu mar walba naburkaa diinta ilaahay loogu dhaawacay ishaydu ku dhici lahayd xoolaha halkaa ayaa la isagaa ku dhammayn lahaa buuri ma nin ilaahay dartii u cawirmay oo diinta dadaalkeyga iyo koryeelkeyga iyo difaaceega loo dhaawacay baan adduunyo ka haysan buuri anigu may wallahi waan ku bixin lahaa buri wax meesha yaalloo dhan ba dadku inay ilaahay jalla wacalaa ku xidhmaan baa muhiimaddu ay tahay jannada dhan ee adduunyaduna waa ilaahay macrifadiisa imaam ghazali raximahullah ayaa odhan jiray jannada adduunyadu waa ilaahay macrifadiisa ilaahay garo bas sirta noloshaan raadinayaa bay koodhan soomaalidu iminka xaggeed ka raadin dhoof xaggeed ka raadin lacag baan samaynayaa lacag sirta noloshu raggii fahmay baa kuu sheegaya dhegayso imaam ghazali raximahullah wuxuu yidhi jannada adduunyada ninkii doonayow waa ilaahay macrifadiisa hel jannada aakhiraduna waa ilaahay aragtidiisa bas laakiin nabigu lahaa sal alla alay wasalam ahlaljannuhu markay jannada galaan ilaahay baa ku oran doona turiiduuna shay-an aziidukum ma rabtaan shay kale oo jannada ahay wax kale oo jannada ahayn oo aan iniigu daro markaasay ahlujannuhu odhanayaan alam tubayid wujuuhana wa tudkhilna aljannata wa tunajjina min annaar yaa rabbi miyaad wajiyaashayda noo caddaynin oo naartaadu naga badbaadin oo jannadaadina aadna gelinin ma wax jannada ka fadli badan baa noo haray fayakshifu alxijaabu nebigu ilaahay wuxuu iska qaadayaa xijaabka famaa ucطuu shay-an axaba ilayhim min annadari ilaa rabbihim buu nebigu yidhi ahlaljannaha lama siinin waxaad looga kalgacaylo badan yahay ilaahay jalla wacalaa daawashadiisa marka ilaahay daatadiisa ay arkaan ilaahay jamaalkiisa jalla wacalaa iyo kamaalkiisa markay jannada dhexdeeda ku arkaan jannadii ay ku jireen iyo xuralcayntii way halmaamayaanba marka jannada adduunyadu waa ilaahay macrifadiisa noloshan adduunyada sirteedu waa maxay ilaahay garo macnaheedu waa maxay maqsuudkii ujeedadii adduunyada lagu keenay garo hadafka lagu keenay garo hadafka lagu keenay waa maxay ilaahay caabud ilaahay bari ilaahay baahidaada u sheego ilaahay weydiiso cid kale waxba ha weydiisan idaa sa'alta fas'al illaaha waida istacanta fastacin billaah waclam ana alummata low ijtamacat cala an yanfacuuka bishay lam yanfacuuka ila bishay qad katabahu allahu laka haddaad weydiisan buu nebigu leeyahay ilaahay wax weydiiso ixfad illaaha yaxfadka ilaahay ilaali amarkiisa adu ilahay baa ku ilaalin markaas ilaahay haddaad ilaalisid amarkiisa ilaahay baa ku ilaalin siduu doonuu ku ilaalin meeshuu doonuu kugu ilaalin ibraahim calayhi salaam dab dhexdeedaa lagu ilaaliyey muuse calayhi salaam qasrigii fircoon ayaa lagu dhex ilaaliyey yunus calayhi salaam caloosha kalluunka dhexdeeda lagu ilaaliyey muxamed calayhi salaam qaar godka dhexdeeda lagu ilaaliyey qur-aanka akhriso qur-aanku waa bayaanka ilaahay bayaanka makhluuqa maaha bayaanka ilaahay dhegayso bayaan hada bayaanun linnaas ilaahay baa sidaa ku leh haddaad ilaahay amarkiisa aad ilaalisid ayaa ku ilaalin yaa ku ilaalin ilaahay siduu kugu ilaalin siduu doono meeshuu doono xilliguu doono
ilaahay amarkiisa ilaali bas. salaadu waa amarka ilaahay, soonku waa amarka ilaahay, islaamnimadu waa amarka ilaahay. amarka ilaahay uu ku amray adiga ilaali bas. meel kastoo joogto ilaahay amarkiisa ku ilaali, maaha masjidka dhexdeeda keliya. meel kastoo joogto noloshoo dhan baa la rabaa ilaahay inaad kaga cabsoto. dhallinyarnimadaada ilaahay kaga cabso, oo da'weynada ilaahay kaga cabsado, oo faqriga ilaahay kaga cabso, oo qinada ilaahay kaga cabso, oo safarkaaga ilaahay kaga cabso, oo xadarkaaga ilaahay kaga cabso, oo mujtamaca dhexdeeda ilaahay kaga cabso, oo khalwadaada ilaahay kaga cabso. markaad keligaa tahay ilaahay ka cabso, mas-uuliyadda ilaahay kaga cabso. haddaad ilaahay amarkiisa aad ilaalisid ilaahay baa ku ilaalin. 40ka nawawiga jardani raximahullah sharxiisa wuxuu ku sheegay qiso cajiiba xadiiskaas. raabica radia allahu canha habeen iyadoo tukanaysa ayuu nin tuuga aqalkeega u soo dhacay baa la yidhi. markaasuu arkay haweenay iska tukanaysa oo aan in yarna aan cabsanayn, ma cabsanayso. way maqashaa shanqadha inuu tuuga aqalka u soo dhacay, waa arkaysaa, laakiin ma dhaqaaqin. meesheediina kamay dhaqaaqin, salaadiina kamay bixin. waxaa la yidhi wixii aqalka alaab u taallay, alaabba umay ooline, wixii yaallay markuu urursadu yidhi bax, iridii uu ka soo galay baa ku noqotay maaragtana gidaar bay ku noqotay, derbi. markaasuu yaabay, wuu soo noqday, haddana wuxuu yidhi halkeed ka soo gashay, halkaad ka soo gashay maan albaabka uu furan yahay uu arkaa. mar alle markuu albaabka soo gaarana wuxuu arkaa albaabka u xidhan, derbigu madaxa ku dhiftaa, gidaar. markaasuu yaabay, haddana uu soo noqdo daragshinkii uu dib u qaatay, daragsiyoonkii. markaasuu halkiibu isleeyahay wata halkaad ka soo gashay furanna ka bax. markuu gaarana meesha u xidhan tahayba, alaabtii uu sitay oo dhan buu u dhigay baa layidhi, ilaa salaadda ay ka baxaysa iyadii uu sugay. wuxuu yidhi kolka salaaddii ka baxday buu ku yidhi, wixii aan kaa qaato waa aniga kuu dhigay, albaabkii halkuu iga xigay ii sheeg buu ka yidhi. 40ka nawawiga ayuu ku sheegay jardani sharaxaas qisadaas. markaasay ku tiri anigu albaabka ma xidhin, albaabka xagga sare laga xidhaa bay tiri, xagga sare. ma doonaysaa in albaabka lagaa furo? haa, toobadkeen bay ku tiri, ballanna qaad ilahay inaad u noqonayso, oo dembi dambe aad ku dhacayn, oo tuugada aad dhaafayso ilaahay u ballan qaad. oo iga ballan buuri maanta laga bilaaba inaan toobad keeno. hal mar keliya markuu sidaa yidhi tiri albaabkii waa kaasa ka bax. albaabkii buu ka baxay, way sujuudo waxay tidhi yaa rabbi anigu waa kaa qoloftiisii waa soo jeediyey, qalbigiisa adigaa ku shaqal, ilaahu qalbigiisa soo jeedi bay ku tidhi. sidiibu ku toobad keenay. ilaahay haddaad amarkiisa aad ilaalisid, halum qisaska qur-aanka aynugu filanba. ibraahim calayhi salaam dab intoo loo shiday baa lagu turay manjaniiq, baa lagu turay manjaniiq min makaanin baciid. marka ibraahim markuu sii dhacayayna malaa'igtoo dhan baa u timiday. markaas ugu dambayntii jibriil baa yimid calayhi salaam. alaka xaaji ya ibraahim buu ka yidhi, ama ilayka falaa wa ama ila allahi fabalaa. yaa jibriil ma adiga may maanta adiga waxba kaagama baahni, laakiin rabbiga waan u baahanahay buu yidhi, kama maarma ilaahay. ibn cabaas wuxuu yidhi hadalkii u dambeeyey ibraahim calayhi salaam markii dabka lagu tuuray u lahaa xasbi allah wa nicma alwakiil, kaafiyahaygu waa ayo waa allah weeyaan. ilaahay waa qaadir calaa kulli shay. ilaahay awood wuxuu u lahaa dabka inuu biyo ku baktiyo, awood wuxuu ilaahay u lahaa inuu dabka dabeed ku kala kaxeeyo, laakiin ilaahay sunnada ma isticmaaline, qudradduu ilaahay isticmaalayo wuxuu yidhi qulnaa yaa naaru kunii bardan wa salaaman calaa ibraahim. dabkoo holcaya oo sifadiisii aanan laga zulin ayaa ilaahay amar wuxuu ku riduu yidhi ibraahim dushiisa waxaad u ahaataa qabo u ahaw bas, iyo nabadgelyo iyo qabo. siduu doona yeela waa ilaahay. dabkii uu holcayaa sifadiisii uu leeyahay, laakiin ibraahim calayhi salaam xaadii jirkiisa ku taalla ma gubi karaayo. bal nolosha adduunyada ugu fiican ibraahim waxay soo martay baa la yidhi 40kii maalmooduu dabka ku dhex jiray. wa ibraahim calayhi salaam qisaskiisa qur-aanka way ka buuxaan, qisas kullaha iimaaniya, laakiin ayaa ku cibro qaadanaya maanta.
islaantiisii haajara iyo ininkiisa ismaaciil afka intuu ku qaatay buu la yimid 4 buuro dhexdood min masjid al-aqsa ka soo qaaday qudus ilaa wuxuu keenay ardul xijaaz dhul kulul oo biyo iyo baad aan lahayn oo roobku ku yar yahay oo dadna ay ku noolayn oo xataa geel la hadhaystay aanan lahayn halkaa intuu ibraahim dhigay haajara iyo ismaaciil ayaa lagu yidhi ka noqo iskaga noqo lagu yidhi oo amar haajara dhaadhac oo dhaadhacday ilmahaaga qabso way qabsatay biyo intanaan kuu hayaayo hoo la dhaadhac way la dhaadhacday baad intanaan kuu sidaaya qabso way qabsatay markaa buu yidhi salaama waa maka halkay maka ku taallo weeyaan dadka xajiyey baa yaqaanay waraysta kulaylka iyo rafaadka iyadoo zamankeenan maanta nafaqyo iyo wadooyin iyo wax walba lagu diyaariyo biyo qabow haddana maalinta xujaydu ay yimaadaan waxay yimaadaan iyagoo daallan bay yimaadeen oo madoobaaday meeshaasoo asbaabaan lahayn ka warrama berigaas halkaasuu ibraahim haajara kaga dhaqaaqay markaasi haajara ka daba hadashay ku tidhi ibraahim ma amar ilaahayba markaasuu yihi haa ilaahay nima dayacaya iska socda bay ku tidhi ilaahay nama dayacayo haweenaydaa iimaankayga ka warrama kalsoonida rabbigeeda ay ku qabtay eega xaaladda maanta muslimiinta caalamka ku nool ku qiyaas asbaabta lagu noolaado agteeda ma taallo baadiye biyo ma haysato wehel ma haysato meeshu waa waadi catash ree yamaneed markay badaacaddooda ay shaam u doonanayaan habeen inay maraan mooyaane maalin ma mari karaan baa layidhi hadday maalin ay cideedda ugu soo baxdo oon bay u dhimanayaan halkaas ayaa nebi ibraahim lagu yidhi haajara iyo ismaaciil halkaa kaga dhaqaaq deedna adiguna qudus ku noqo yaa ilaalinaya markaa yaa ilaalinaya yaa arsaaqaya yaa dariyada ka dhabaaya ilaahay baa ka dhabaaya laakiin waa usrad qalbigooga macrifada ilaahay baa degtay halka innaka maanta zamankeena muslimiinta tawxiidku carabka uu noo dul yaallo usradaas iimaanka iyo tawxiidku qalbigoogu dega qalbigooga idan laa yudayicana ibraahim marba haddii amar ilaahay aad nagu dhigto nagaga noqotay nama dayacaya socobay ku tiri isagaa nagu filan buurta gadaasheedu markuu ibraahim istaagay uu gartay xataa hadduu soo daymoodan inuusan arkaynin ducaduu ku duceeyey waa ka qur-aanka ilaahay noogu sheegay rabbanaa inii askantu min duriyatii biwaadin gayri dii zarcin cinda baytika almuxarami rabbanaa liyuqiimu الsalaa fajcal afidatan min annaasi tahwi ilayhim warzuqhum min athamaraati lacallahum yashkuruun ducadiisa waxau ka bilaabay diin buu ka bilaabay adduunye kama bilaabin innaga markaan ducaysanayna ducadeenna waxaan ka bilaabnaa adduunyada ilaahu lacag isii ilaahu sanadkan ciyaalka imtixaankay marayaan ha baasaan adduunyada in ilaahay la weydiista way fiican tahay laakiin hidaayadda horeysa diintaa la horeysiiyaa ibraahim calayhi salaam uu u jeedaa meesha uu reerkiisa dhigay inay biyo la-aan tahay inay baad la-aan tahay inay wehel aynay ku haysan uu arkayaa laakiin ducada waxau ka bilaabay diin buu ka bilaabay rabbanaa liyuqiimu salaa wuxuu garanayaa hadday reerkaasi salaada ay leeyihiin hadday diin leeyihiin hadday ilaahay xidhiirkiisa leeyihiin adduunyadana way helayaan nolosha qofka muslimku diin bay ka bilaabantaa adduunya kama bilaabanto ninba ayaa nabigeena u yimid calayhi salaatu wasalaam oo yidhi yaa rasuul allah rabbigay markaan baryaaya maxaan idhahdaa ii sheeg qul allahuma kfir lii warxamnii wahdinii warzuqnii waata ducada ambiyadu qul waxaad tidhahdaa allahuma allahayow ikfir lii ilaahow dembigayga dhaaf warxamnii ilaahow ii naxariiso wahdinii ilaahow ii hanuuni warzuqnii ilaahow ii arzaaq arsaaqadda waxaa ciriiriga ka gelinaya maanta ee maciishada nagu adkeeyey waa macaasida badan weeyaan lidaalika nebigu wuxuu u tilmaamayaa ummadda dariiqadda saxda lagu ducaysa waa dariiqadee awal waa maxay ilaahay dembi dhaaf weydiiso waayo dembigaagan faraha badan leh ayaa nolosha ciriiri kaa gelinaya
waxaa nolosheenu maanta bilaa barako la noqotay tijaaradii way badanaysaa tacliintii way badanaysaa wax walba way badanayaan maciishadiina way sii adkaanaysaa dhakhtaradii way badanayaan hosbitaaladii way badanayaan farmasiyadii way badanayaan daawadii way badanaysaa bukaankii muu yaraaday mise uu batay bari sheega hosbitaaladii way bateen dokteeradiina way bateen daawadiina way badatay dadkii bukay ma yaraaday mise way sii bateen tacliintii mutacalimiintii way bateen laakiin noloshii maciiri bay sii galaysaa mise fudayd bay noqonaysaa bal iga jawaab cidhiidhi adduunyadii way badanaysaa dhismihii uu badanayaa ganacsigii uu biirayaa tujaartii way badanayaa wax walba way badanayaa laakiin maciishadii way sii adkaanaysaa barakadii bay naga maqan maxaa nolosha maciishada maxaa cidhiidhiga gelinaya waa kasratu dunuub dunuubtaa badatay macaasidii baa badatay khafladii baa badatay diin la-aantii baa badanaysa fadhigii masaajida ayaa yaraatay ictikaafkii masjidkaa yaraaday majaalis alghafla badatay majaalis alghafla deedna markaasa noloshii waxay noqotay cidhiidhi lidalika nabiyadu calayhim asalaatu watasliimaat meeshay ducada ka abbaarayaan u fiirsada rabbana lan yuqiimu salaa fajcal afidata min annaas warzuqhum min athamaraat midho la cuna ku arsaaq midhaha u dambaysiye waa arsaaqadii diintii u horreysiiyey cibaadadiibuu ku xojisiiyey in ummadda ilaahay aqalkiisaas waa beytka ilaahay muxaramka ay qulubta muslimiinta ilaahay u soo jeediyena uu ku nabeeyey ducadii midho la cuna ilahu ku arsaaq buu yidhi xataa beera ma odhan midho la cuna ilahu ku arsaaq asbaabtii nolosha markaa ilaahay ka siiyey haajara maa u zamzam baa loo soo saaray safar reer yamaneedaa soo waacday reerahoogii bay soo rareen way la degeen makkata almukarama waxay noqotay magaalo ganacsiga shaam iyo yaman u dhaxaysa oo reer shaam markay imanayaan badeecadda shaam laga keena makaa la dhigaa badeecadda reer yamaneed markay badeecadda doonayaanna maka yimaadaana makay ka qaataan halkaa markay magaaladii maka ay marayso tuulo biyihii ay dhex yaallaan oo biyaha dhex yaalla tuulada baayac mushrikii baa ka socda ayaa lagu yidhi jibriil baa u tegay ibraahim oo waxaa lagu yidhi rabbigaa wuxuu ku amrayaa islaantii haajare iyo ilmaheygii ismaaciil ee maka dhigtay inaad ka war doontood soo aragtaa lagu amraya orada u teg soo arag buurtii uu gadaasheeda ibraahim markii uu ka ducaynayay markuu buurtii iskor taagay muxuu arkaa tuulo waa meeshuu kaga tegay islaaniya ilmo yar waxay noqotay hayjad biyo leh baad leh magaalo ah oo dhisan baayac mushrikiina ka dhex socda jibriil baa ku yidhi yaa ibraahim rabbigaa wuxuu ku amrayaa inaad haajariya ismaaciil isha aad ka soo aragta bas faraskaagana aanad ka daadegin kadibna waxaad ku noqonaysaa qudus yaa jibriil xaaskaygii weeyaan waa ilmahaygii ismaaciil inaan arkaan rabaa un la fadhiisto un warayste may inaad faraskaaga ka degto amar uma haysatid waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaat faatamahun ilahay ba qur-aanka inoogu sheegay dadka ilaahay jecel yahay adduunka dusheeda waa la ikhtibaara waa la imtixaamaa sidee lagu garan hadduu qofka haddaan la imtixaamin sidee iimaankaaga lagu garan marka qofka muslimka ee muuminka ilaahay xaggiisa imtixaan loogaga keenana waa marka la doonayo qofku qalbigiisa ilahay inuu ku xidhmo ha argagixin ha quusan waa marka la doonayo in iimaankaagu adkaado in yaqiintaadu aad tidhaahdid ilaahay baan haystaa waxba iga xuman maayaan yaan haysanaa allah baan haysanaa xaalad adag markii qofka muuminka ku timaado waxaa la doonaya inuu qofku yidhaahdo ilaahay baa macayga ibraahim calayhi salaam intaasoo imtixaano fara badan ayuu maray waxaa ka mid a imtixaankiisii u dambeeyey waxaa ka mid ah imtixaanadiisii ilmaha ismaaciil uu 9 jirka uu ku dhalay ayaa markii dambe lagu yidhi qaado
sida neefka xoolaha loo bireeyo u soo biree magaaladii buu soo galay ibraahim ismaaciil aawe ismaaciil waa kan namari aabo xaggee saaxiibkii baan kula kulansiinaya namari buu ka yidhi uu qaaday halka mine ee xujaydu dhagaxa ay ku tuuraan ee dhagax tuurka halkaa markay marayaan ayuu arkay ismaaciil oo didsan markaasuu ku yidhi aabba maxaad arkaysaa aabba waxaan u jeedaa oon arkayaa nin baa igu leh waa lagu gawrac odagu ku gawracayaa ka baxso markaasuu yidhi aabba waa ibliis weyna dhagaxa ku tuur buu ka yidhi waa halka xujaydu ay dhagaxa ku tuuraan ramya aljimaar halkaa markay marayaan buu la hadlo wuxuu ku yidhi falama balaga macahu sacya qaala yaa bunaya inii araa fi lmanaam anii adbaxuka fandur maada taraa qaala yaa abati ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min asaabiriin halkaa markay marayaan buu ku yidhi aabbo waxaan ku manaamay anigoo ku biraynaye adiga bal maxay kula tood odhan lahayd buu ka yidhi markaasuu yidhi aabbo amarka ilaahay buuxi buu ka yidhi iyo fuli anigana waxaad arki doontaa inaan ahay adkayste sabir badan inaan ahay baad arki doontaa oo saabiriinta ka mid ilmaha ibraahim kuma dhalin 20 jir bal ismaaciil waxa uu ku dhalay 9 jir odayadu markay ilmaha 50 jir ku dhalaan baa la yiraahdaa war ilmahan waa ka dhigile ma 50 jir buu ku dhalay soo ma darki ilmaha odaygu jecel yahay gacanta uu haysto ayaa lagu dacay war ma 50 jir buu ku dhalay kan waa ka sii dayn leh igu markuu 50 jir ilaa inta ka horeysay ilaahay u baduuna siinin ee 50 markuu maray ilaahay ilma uu siiyo ilmaha ka 20 jirka ku dhalay waa uga duwan yahay maxaad u malaynaysaa nabi 9 jir ilaahay ilmaha uu ku siiyay oo haddana la leeyahay sida neefka xoolaha loo bireeyo ilmahaaga u soo biree waxa cajiiba ilmahan aabihii kuma akbar daarin laba qiso cajiiba quraanka ku taala labaduba waa ina nuux iyo ina ibraahim qisadii nabi nuux inankiisa markii ummadiisa la halaagayay waa kii ilaahay ku lahaa doon samayso nuuxow adiga wixii ku raacana doontaa saar ehelkaagana doonta ugu yeer inay fuulaan waa kii nabi nuux inankiisa u yeeray ku yidhi qaala yaa bunaya irkab macna walaa takun maca alkaafiriin qaala yaa bunaya inankaygi yaraayow irkab macna nala soo fuul walaa takun maca alkaafiriin kaafiriinta macooga ha noqon buu ka yidhi qaala sa'aawi ilaa jabalin yacsimunii min almaa qaala sa'aawi xataa aabba ma odhan baa la yidhi ilma aabihii u yeedhay ilmo waalidkiisu u yeedhay oo markuu u yeedhay aabbo ama hooyo odhan waaya hada calaamatu shaqaawa bay culimmadu leeyihiin waa calaamatu shaqi waa caaq ilmahaasi sida u jawaabaa laga garanayaa ina nuux jawaabta uu bixiyey eeg ina ibraahimna jawaabta uu bixiyey u fiirso ismaaciil wuxuu yidhi yaa abati ifcal maa tu'mar aabba amarka lagu amray buuxi buu ka yidhi laakiin nuux inankiisa wuxuu yidhi sa'aawi ilaa jabalin yacsimunii min almaa xataa aabba ma odhan baa la yidhi dhallinyaradaan sheegaya iyo ciddii waalidadoodu maanta ay nool yihiinow waalidkaagu markuu kuu yeedho hadday hooya ku yeedhana hooye macaanay dheh hee hooye macaanay hadduu aabbahaa kula hadlana hee aabba macaano dheh waa ilaa haddaad how tirahdid keliya how ba maxaa tidhi hada calaamatu caaqul waalidayn weeyaan nuux inankiisa badbaadu ugu yeedhayaa inankiina badbaadadii uu iska diido wuxuu yidhi buurtaasan biyaha ka fuulayaa faxaala baynahuma almawju fakaana min almughraqiin baa ilaahay yidhi iyakoo labadooda hadalka isweydaarsanayaan hirarkii mawjadihii duufaanka ayaa dhex maray deedna inankiisi waxaa ilaahay ka yeela kuwii qarriqmay kuwii kana waxaa lagu yidhi inii araa fi lmanaami anii adbaxuka fandur maada taraa waxaan ku manaamay anoo ku biraynaya sida neefka xoolaha loo birayo ee aabba maxay kula tahay buu ka yidhi qaala yaa abati ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min asaabiriin aabba amarka ilaahay buuxi oo yeel aniga hadday noqotona waxaad heli doontaa inaan ka mid ahay kuwa saabiriinta adkayste
labada aabba maaha bay culimmadu leeyihiin maaha labada waalid labada aabba maahan waa labada hooyo ayaa kala duwan ina nuuxna waxaa soo tarbiyadaysay hooyo ilaahay cilaaqa aan la lahayn hooyo nebi nuux aanan rumaysnayn hooyo gaalnimadeeda qarsanaysay oo inankeyga ku lahayd odaygan qaylaya warkiisa ha maqline oradanahaga qabso ismaaciilna waxaa soo tarbiyadaysay hooyo tidhi markii cillada lagaga dhaqaaqay tidhi ilaahayna dayici maayo ibraahim oo da iska soco laanna ilmaha baa la yidhi inta badan tarbiyadda hooyadaa saamaysa ee tarbiyadda aabbuhu ma saameeyo inta badan ilmuhu ma hooyuu la joogaa mise aabbo midkuu la joogaa hooyuu la joogaa hadday hooyadu hagaagsan tahayna ilmuhu way hagaagayaan hadday dumarku naga baanaadaanna ciyaalku way baanaanayaan waayo dugsiga ugu horeeya mujtamacu ka soo baxaa uu wax ka soo barta waa hooyada haddii dugsigaas uu noo hagaago uu dugsi diin danaynaya u noqdona mujtamac diin danaynaya soo bixi doona hadday malcaamadahaas iyo dugsiga uu naga hallaabo uu naga xumaado ilaahay nagama xumeeye waa haweenkan u jeeday hadday haweenku naga xumaadaan waxaad ogaadaan jiilalka soo socdana way naga qalloocsameyn ogaada marka dumarkeenna xaasaskeenna gabdhaheenna hablaheenna inaan diinta ku tarbiyadaynaa waxay ka dhigan tahay mujtamaca soo socda hagaaggiisii baa ku xidhan gaaladuna laba qolay ku dadaalaan maanta laba qolo dumarka iyo ubadka labadaabay naga soo galaan odayaasha dan uma leh ragga dan uma leh gaaladu labaday ku dadaalayaan maanta waa labadaas waayo jiilkan maanta jooga waxay leeyihiin hayna dhaafaan laakiin jiilalka soo socdaan bedelaynaa bay gaaladu ka fikirayaan inay bedelaan lidaalika nebi nuux calayhi salaam islaamtiisu maadaamay gaalad ahayd oo gaalnimada qarsanaysay tarbiyadda inankeyga iyadaa saamaysay ismaaciilna aabbihii kuma agbarbaarin hooyo ku agbarbaaray tarbiyaddii hooyadii baa saamaysay hooyo caynkeeya hooyo ilaahay ku xidhan hooyo cidna markii lagaga dhaqaaqay tidhi ibraahiimo ma amar ilaahayba haa ilaahay nima dayacayo socabay ku tidhi ilaahay waa ilaaliya ibraahim inankiisii ma gowricin ibn qayim aljawsi raximah llah wuxuu yidhi maqsuudku ma ahayn ilmaha gowrac maqsuudku wuxuu ahaa jacaylka alla mooyaane jacaylada kaloo dhan qalbigaaga ka sar qalbigaas waa meesha ilaahay addoonka uu ka eego weeyaan ilaahay cadamadiisa ilaahay maxabadiisa ilaahay jacayladiisa ilaahay weynidiisa mooyaane qalbigaa jacaylo kale in lagu arko lama ogolo dadku inay ilaahay ku xidhmaan oo dadku diintan ilaahay xadhigga ilaahay qabsadaan waa muhiimadda ilaahay nebiyada u soo diray waa muhiimadda nebigeenna loo soo saaray calayh isalaatu wasalaam dadku ilaahay ku xidhmaan adeerkii abaa aalib baa u yeedhay rasuulka maalin markaa nebiga quraysh abu aalib iyo quraysh baa la fadhida markaasuu loo yeedhay rasuulka ilaahay u yimiday abaa aalib oo sankaraada markaa wuxuu yihi maxamed oo adeeradaa baa ila fadhiya quraysh akaabiru quraysh baa ila fadhida aday kaa cabanayaan maanta maxay igaga cabanayaan ilaahyadoodii baad ka ceebaysay odayadoodii caqliga badnaana waxaad ku sheegtay inay yihiin dad maangaab oo aan waxba fahmayn aabbayaashoodii dhintayna helanaar baad ku sheegtay midnimadoodiina waad kala geynaysaa intaasoo arrimood iyo wixii waxyaabo kaleoo la mida lagaaga cabanay adiga bal maxaad ka sheegeen buuhi bal sheeg wuxuu yidhi anigu adeeraday wax dhibaataa iyaka aan ka sheeganaya ma jirto laakiin iyakaa khayr la rabaa buuhi anigu bas khayrkaad la rabto waa maxay kalimatan yaquuluunahaa kelmaduma ii odhanayaan bas hadday kelmaddaa yidhaahdeen carab oo dhanna boqorray u noqonayaan cajab oo dhanna jizyadda ka qaadayaan buuhi markaasu maxaa tidhi kelmadunba lahayay dhahada bas haddaa kelmaddaa tidhahdaa qurayshay carab oo dhanna ininkaa boqorro u noqonaya
cajam oo dhan ninka jizyada ka qaadaya marka Abi Jahl baa saraka oo yiri waylaka 10 ma kalmad iyaan waxa soo mulkay ku helaya ha 10 jeer baa ku celinay kalmada ay sheeg buu ka yiri marka Abu Nabigu ku yiri la ilaha illa Allah hada wadiban isani marka sayyidadan aj'ala al-alihata ilahan wahida in hada la shay'un ujab bilahyadi intii la akay 360 ilaah oon haysanon caabudaynay ayaa baahideedii daboolile Muhammad ma waxa uu leeyahay mid kaliya caabuda arigaas waa arin la yaab leh Muhammad diintiisa ku ka tagaya ma ahine inaga dareeriyay bay yiraahdeen meesha ilaahadeena cibaadadan caabudaynayna ha ku sabiro aan iska adkaysanay naga mariyo bay yiraahdeen ayu Abu Talib baa nabiga ku yiri hadal xun baa kuma doonay waa maxay ma inta bay ka didayaan ha inta bay diidan yihiin adar adigu kalmada ay dhabiyo qiyaamaha ku marxaati kacay سكرات كيف هي مركب أبو طالب كلمة ونيدا بس كلمة قيمة بدنا وكسر النقضي أبو طالب أبو جهل ما وصل النقضي مركب النبي ورسول زيارة أبو طالب وهو أركب أبو جهل وأكفر يا مركب النبي وأكفر يستوح ويقول يا عمي كلمة نحاج لك بها عند الله يوم القيامة مالك قيامة كوكو دودي دوناي كلمة داون أنا مريم مغشي بكيدي لا إله إلا الله مغشي قيامة أكون شفاعة بعدي مركز أبو جهل بو أجي أبو جهل باين مركا أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب من ملة عبد المطلب ما أنت كتجسا ومحمد بوركي سقانا نسا أبو طالب مركا هو مسلم مركا أبو هذا النبي يقول له الله كيدي يا عمي كلمة نحاج لك بها عند الله مركلي كلمة أنا ما غشيو إيده مالك قيامة كل شفاعة قاضية مركا سوء موسى أبو طالب هذا أبو جهل بسوج يديو كيري يا أبا طالب مدينة عبد المطلب بتكتجسا ومحمد وركي سبقانا نسا هذا مركا ممرلة بتكو علي مركا قدام بس أبو طالب حيري على ملة عبد المطلب بنقول من محمد ويداب كيري حنقول من ملة عبد المطلب بنقول من دينتي أبا ياشي كتجي معي محمد وأنا جالس كيدا مركز نفتي سكت عليه بالليل مركب النبي جانا عليه الصلاة والسلام سقول المين يوكك عيهلك واكي إلهي القرآن كسو دجيه يري إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين قال ذلك جعل تمسوا هذين يسد كي إلهي غضونا سياسوا هذين أيام مركب رسولك يري يا عمي لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك يا عمي أذيرك يوم هذه ما أنت أدوى أنا شهادة ويدي ودينات كلمة مرئي مقاسيسد هذا اسكدي دي أنا قلنا حق بعد يقول هذا هاي والد كي بعد يتعاية وحن أنا قلنا كنت ذاليا إن إلهي دم دافع عن كوي ديو أنت اللي يري بكهر مرقاس الرسول كانوا بلابين أدعي أذيركي وقال لي ما كنت انت قولي منا أبو طالب صحابتي وين مغلى نبيقوا أذيركي بودعينا يا يكون أبيا صوب بلابين مركا إنه أدعيان وإلهي دم دافع نحرس ويديان مرقاس إلهي كددوا يري ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما يهان النبي محمد يا مؤمنين ترعصا إلى الكوكية قرابدو دي كوي قال لماذا كنت انتي كوكي وعدا تكذب إن أهل النار أيهين إلى إلهي دم دافع ويديان ودعيان أرنتاس أرن بنان ما هنا كجوجا بنبي قالوا مركز كلمة داس تتكوين كلمة دا إرادة أي النبي قلبي سكوين عليه الصلاة والسلام إمام مالك رحمة الله عليه أي مالك وحوار كين اللي يرى وشارب الخمر يعني وسكرامي مركا لأن مركو السكرامي يركي يرى سكرتي باكسين إيسا الله 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 شيخي يابي والسكران اسم الجلالة عجيب إمام الديسي انتو صوق هذي أيو صوص صعبي باليرو بريركي خمري بعضك كجبي وعسري بالمقعن مقعي إلهي اسم الجلالة أفكن وكسر بحي ما تكمل سحدي ذا لأن مرقاسو كم صحيح بالإساس وكم صحيح لأن مرقاسو يا شيخ
وسكراسنه يقتك وسكراسنه اسك كيدا مركو كبيي بو اسكغا تغي habeenkiina uu duceeyay baa leeyahay ilaahu qalbigiisa adaa ya soo haday imaam maalik rahmatullahi alayhi habeenkii markuu jiibsaday ayaa manaan baa lagu yiri sida anaka daraadaya adigu afkiisa dareerkii khamriga aad uga biisay ayaan anakuna adiga daraada qalbigiisa khamriga uga biinay baa ilaahay ka yiri خلاص صلاه المغرب صلاه الفجر imaam maalik markuu salaadii tujiyay dadka darsigii buu bilaabay wuxuu ka dhaxarkay yarkii yaraayo darsigii dhex fadhiya markaas ma isagii baa misma markaas uu yeeray markuu darsigii dhameeyo wuxuu yarkii ma tihid haawa anigi say wuxuu jiraan bal sheeg adigan saajidkii ilaahay wuxuu xaaladayda xalay toole kii kaaga waramay baan anigana soo aaday buu ka yiri xaaladayda kii xalay toole kaaga waramay adiga baan anigana soo aaday تحريص إن عندنا حريص نقطة على جرب أقف كمسلم والرحمة تذكر عننا حريص إنه كم مات من المسلمين أي إله كبوان أو حريق إله كبوان مسلمين سكدا صلاتك وتكريا غلانك وتكريا أي نبي وعيد الدقو وحيري والذي نفس محمد بيده نفت محمد كي قعنتي سكجرت يا أخو دارته وحكوهم يبو رسول فينا نرادو حابي صبرا ضبي شدا هبلو صلاة داقين هبلو صلاة دوبة كبح كوا غلالا كنت كنا ينتونو ويدارتنا أنا غلالا كنت صببو أيا كوهم يبو رسول كيولي قصة لي رسول كين والنبي نحريس تبنى والنبي إلهي ويري وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والنبي أركي حرق بو أركي مسكيتي خدا حيران مركا بو أركي النبي وحرقنا يا لبوي وعلى الحرقنا يا حري زينب حيرتي محاي قدقتا صلاة الليل كمركا كدا شيء قبستا وقوي النبي وحرقي حري أعماشا انت أذكر إنسان وقبتها وأعماشا صنها خيرك إلهي خيرك ملائكته إني قريان كما الدعلان بو النبي قولي إلا إنكم خير كسميتي سكد على مويا هذا قال نشاط كاترين تكلموا النبي يري هذا قال دلتي ناس كسحر برسولك يري نحرستي سائق أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها هل كي صلاة الليل كنت كنيسز أي النبي قصور هذا برقدي يدو فردة برقدي وسقالك الصبح نمو أما طبنكي هل كي صلاة الليل كنت بلوضي مركز النبي يقول يا جويرية مالك كاجا تيبا فدلا هالكا دي كاجا تكتبا فدي النبي الله ومن حال صلاه الليل قال كنت قبل على صلاه الى برقدي وحيو فدلا مروى صلاه مروى قران مروى ذكر مروى مناجاه مروى الله بري ويا انك دمركن ما انت ما شاء الله مطبخ الصباح دي اي غشي كدادعدا غورما كسو بخدا عشايغا كبخ maalinta dharka meerayaan haweenkeenu hudheer ba aqalka lagu iibinayaan mooyaane wax kale oran maysa dharka la meeray badidiisa ashyaabana awqaadeena ku bixinayna iyo kuna a'maal bay waqtiga ku bixinayeen awqaad a'maal markaa nabigu ka naxay say cibaadada isku ku taxallujinayso markuu arkay ayuu nabigu u dabciyo wuxuu ku yiri adiga dabada afar kalmadood oo saddex jeer ku celiyay ayaa wixii maantoo dhan khayr aad samaynaysay haddii miisaanka lala dhigi lahaa kafad u dhigmi lahayd buu nabigu ka yidhi waa maxay subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi waridaa nafsihi wazinata carshihi wamidaada kalimaatihi saddexda afartaa kalmadood oo saddex jeer aan idhaahdo buu rasuulku yidhi ayaa wixii maantoo dhan khayr aad samaynaysay haddii miisaanka lala dhigi lahaa u dhigmi lahayd buu nabigu ka yidhi نبينا نحرست بدن عليه الصلاة والسلام إن حرست بدنا أياك دارنا يا هالة والله وحن كهم يبو نبي قول يا هاي كوا غلنا كده تكنا يا أنا ضب سوق بتسيان دوني برسولك يوري كان تكني نمرك كورما وردل كنا ما أنت تكني ما بدن الجواب يا أنت تكن بدن
وهذا تولى صومر تولى بل كنا كنت على قبل كان سلل لحن أوكليا أيا صلاة فجر لتو كتجمع سداد مسلح بها يعني واجي مركو بريان ورئيسنا تولدي وعلى تولد اللح بغلو قيس بكنول سداد نبى صلاة الصبح كسوتو كتي نقصان دينين ما انت ويت على مال والبع لكن دين تعد النقصان ده كب حينيسي ايا ما انت ومضى كم قال ما انت شغل الدنيا ده ذلك قال انه شيء مايو سبب الى لها تجارته تعليمته سبب الى لها حنونك سبب يولا هي قفل بطريقه الله مروا لها سبب كستي وعلي وحان ضلنا اسباب الى هي لي لكن اسبابته ومضى يكون حنونيسي ما انت ومضى ويلو مساجد جمعه لبوحه وآن لو تكنايو أيا نن قروح بدن أو در آذو قروح بدن ستة أيا صفقه ركوتو كذي وكسوك عي علماء دي بقوي مدي وحبودك تأوش يا جاي شيخ إمام كان مكرفون قاتو حيري نكا ولالكن يندول تاجن وحولي جمع مسلمين تو أولاد إلهي هيوي ديان بولي أدعي يقولي والله دعي ما شاء الله هذا جمعيه كانوا سوك عي دعادي بو شيكتي والله دعي هذا جمعي سدعاد بو سوكعي دعادي بو شيكتي والله دعي نين علماء كمدا فكري او ياري سو فريسبو لو وحور امس دمر غورستي بو كيدي markaas ma buu guursanba balka warama ninkaas saxba ducadiisaasi ma soconaysa ducadaasi majmacaadan ee awliyada iyo culimada u badan u duceeyeen ilma ma ku helaya limaada muxuu weelay bal sheeg khilaaf sunna sunnadii ilaahiyadii buu khilaafsan yahay dariiqadii loo maraya saxda ma marin marka uu soo kacay hay-adiisa quruxdiisa waxaa la moodayaa nin afar dumara leh oo weli u badna aan ku tixin laakiin markuu yidhi maba guursanba ayaa la yidhi war nambar baa kaa qaldane horta soo guurso horta nambarkaas ka soo sax dee nambarkaa ilaahay bari ayib haddana jamcihii kaluu soo kacay ninkii xaaladiisa ogaaya xawaasha ka qaadayba ayaa yidhi war naga fadhiiso waryaa intuu imanba meeshii buu fadhiisiiyey culamadii baa ku tiri war waa ninkii ducada doonaya khayrka badnaa iyo ducadoonkii maxaad u fadhiisisay baa laga yidhi markaasuu yidhi war nambar baa ka qadlan buu yidhi ninka maskaxdu wax ka yar qabaa si aad ku garatayoo dee maba guursan buu yidhi iminka kulligeen dadka maanta muslimiintu in muslimiintu acaza annaas dadka adduunyada ugu sharaf badan inay noqdaan ma jecel lahay mise ma jeclin bal ninkii jeclow gacanta taag laakiin dariiqii muslimku casiis ku noqonayay inaan qaadno diyaar ma u nahay uma nihin bisada iyo jiirka maxaa ka dhexeeya is-aragunbaa ka dhexeeya soo ma jiirkii baa isku yimiday way tashadeen waxay dhahdeen habeen walba bisadii 10 20 waa lana dhameeyey seen u badbaadnaa ka tala bixiya jiir baa yidhi markaa ra'yi fiican buu soo jeediyo wuxuu yidhi waa mithaal yani koortan awrta la suro soo ma taqaanaan jaras geela la suro ha la qaado oo bisada qoorteeda la soo suro buu yidhi si markay soo socoto shanqadha loo maqlo dadna looga dhuunto markaas jiirkii oo dhan baa yidhi wallahi fikraddaas waa fikrad fiican tala fiican buu soo jeediyey waan isku raacnay marka jiirkii sheekhoogii ugu weynaa baa yidhi waa hagaaga ayaa soo suraya buu yidhi soo saamaynde nabiga ku salliya dad muslimiintoo dhan maanta inay diinta dhegaystaan inay diintu nolosheenna ka muuqato inay muslimiintu acaza annaas inay noqdaan waan jecel lahay laakiin marka la gaadho diinta dadaalkeegii nin walba geerka dambe u gashanaya markiiba war waxba geerka dambe ha gashane geerka hore gasho yaa u diyaar geerka hore inuu geliyo insha allah dhahada allah inaga farxiyo waxay noo ballana diinta dadaalkeega inaan waqti ku bixino tafaraq licibaadatii amla sadraka ghinan wa asudda faqraka
تفرغ لعبادتي حديث القدسي في تفسير ابن كثير بكشاقي في شرح وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلهي باكل تفرغ لعبادتي والطاعة ديدا عبادة ديدا دين تيدا وقت وصمي با إلهي كل ابن آدم هذا الدين ده وقت وصمي سمحنا ليس مركا أملأ صدرك غنى با إلهي لا بتان أني قلنا كاقب بحين با إلهي هضم هل كان لقد نقض غني غنى النفس ما كسين ويان باهد أنا كود مولي با إلهي كل إيهي وأسد فغرك الباب الفغر قلنا أنا كاد مولي با إلهي وكاحد إياه وإلا تفعل هذا العبادة ديدا هي طاعة ديدا هي دين تيدا هذا وقت السين وإذا با إلهي كل إيهي باهد أنا كاد مولي مينو قعنت هذا مشغول ما كدقنا با إلهي ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك أفر إلا ما تلقى ساعة مشغول ما كان يجيب إلى هيك هيدي فقرك أنا كاحد منه والله ما عقوبة ومدة خد على مات كيف فقير كيف وحده هيسن مرجع جماعات وتر تتر على إلهي درتي نرع وعلاني ما هلا يوم وحنا ما هيسد به مشغول بالهاي بكورن وحنا ما هيسد به هذا مقايد بفضيع دور كي مقابل فريستقاب baabuurta dariiqa la eryanaya inuu kala mid saa u eegaya BBC duu geynaya idaacado dad walwalan ay leeyihiin oo baalkan maanta laga soo saarayna kolba mid buu gashanaya waxa caalamka ka dhacay uu la socdaa aakhiradiisina war uma hayo marka jamaacadu u tagtay tiraadana masjidka noo raac in yar ilaahay hadalkiisa la dhageyso mashquul baan oo nima haleelayo waxa mashquul ku tahay waxa mashquul ku tahay uquba kugu dhacda mashquuliyad la yiraahdo كيما الغبين كهانا إيه هيستي كنتن سنو أما بقول سنو هدو هردو وحو عننا هاي سوى بانكا أي يقول جرتو هذا لا فقري بوكا بقايا ما دعلو سوى كنتن سنو أما بقول سنو قوت هيسي إلهي ميل وصارو هايستا هذا ترى إلهي درتي أبح ومسجدك وحقشو ومدرسة وحقشو ومعلم قرآن ما ركان أنا فقدي سنة قبحي هدي اللي يرادو وعليا هيا حبا ما هايستلا سجن وحى كل دعي عقوبته ولم أسد فقرك الباب هذا فقرك كاحد من بين هيولي هذا دينتا هي دعوة هي علمك هي مساجد سيد ومد الله وقصوا حري لها الوقت جاء وبحري ويدو لما لا عقوبة كل دعي سقفك مشغول أفر لما تلقى ساعة مشغول بالغدقي أفر لما تلقى ساعة وكيبها لما ذا عقوبة إلهي من نقفل إذا ما دون إنسان هذا الله ينوز زيادي مسلمين تملي جوغان موافقين من دمان الله سيو قفول بالكن فديا كربدا سارن إله وديغا اوغ هل كربيسيه كربدا إله كقاد دلنيرada waxbaran san إله تعليمتooda إله barakee culummadan إله cilmigooga cilmi naafic إله ka yeel dalkeenan dawladeena dadkeena shacabkeena إله diinta ku wadanay إله ka yeel إله kuwa masaajida amar إله naga yeel kuwa diinta kor u qaad إله naga yeel wixii dib nagula soo maqana dibta gudahooda Ilaahu ku celi wixii khayr noo soo wadana khayrka Ilaahu ku kaalmee muslimiinta adduunka meel kasta joogan Ilaahu midnimadooda iyo muwaafaqadooda Ilaahu soo celi hidaayad muslimiinta Ilaahu toobad iyo tagyiir al-amal ku galadayso gaaladan Ilaahu soo hadee gaalada intii hidaayad aad ugu tala gashaada oo Ilaahu soo hadee dadkeena wixii dibadda joogan ilaa ka joogan Ilaahu ku ilaali kuwa diintaada iyo dadaalka diinta daryeel Ilaahu ka yeel اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وشهادة عند الموت ونعوذ بك من سوء الخاتمة صلى الله على سيدنا محمد